waxaa laga hayaa in badanna laga maqlay kuwa xigmadda u saaxiibka ah in waanooyinka iyo wax sheegooyinku yihiin hadiyadaha la bixiyo kuwa ugu qaalisan uguna qiimo badan ka dhagayso kii wax sheegaya xitaa haddii aadan afkaartiisa ku raacsanayn dhagaysi kadib kala sooc wixii uu kuu sheegay kuwii kuwa toosan ee ku anfacaya qaado kuwii aan faa'iido kuula muuqanna iskaga tag hana ilaabin xushmadda iyo tixgelinta uu kaa mudan yahay qofka wax kuu sheegay xikmadaha iyo murtiduna sidoodaba waxay ku jiraan meelo iyo dad aan laga filayn marka ha u malaynin in keena u muuqaal wacani yahay keena u xikmad badan waanooyinkan aan ceelka xikmadaha idinkaga soo xulayna hadday galab idiin tahay igula galbaysta hadday subax idiin tahayna igula barqaysta kuwii habeen muuqaalkan furana ha igula caweeyeen iyaguna waanooyinkan noloshaada ku dabaq intaad nooshahay waxaad jeceshahay samay laakiin qofnaha dulmin sidaad rabto wax u kala sooc laakiin ha isla weynaanin weliga sidaad doonto u carow laakiin qofnaha dhaawicin haddii ay fursadi kaa halowdo oo qalbigaaguna gubto ku dami qalbigaaga aayadan casaa rabbuna an yubdilana khayran joognaa zaman haddii dhagax lagu oran lahaa noqo insaan uu oran lahaa waan cudur daaranayaa maxaa yeelay anigu ma ihi mid u adag sida insaanka oo kale ha ka xumaanin xidig kaa damay samadu waxaa buuxa xidiga fara badan haddii uusan nasiibkaagu noqon midkood lama oga in nasiibkaaguba uu yahay dayaxa haddii aad doonayso inaad nolol farxad leh ku noolaato noloshaada hadafyo ku xir ee ha ku xirin ashkhaas yacni dadka qaar haddii aad keligaaga tahay dareemin murugo xasuusnow inuu dayaxuba yahay keligii isagoo uu keligiisa yahay ayuu haddana yahay midka u quruxoon inta samada ka muuqata dhaladu way jabtaa sawdka jabitaankeeduna si degdega ayuu u dhammaadaa laakiin quruuricii dhalada ayaa hara haddii uu qof taabtana way dhaawacaysaa sidaasi waxaa la mid ah hadalka wax dhaawaca si degdega ayuu u dhammaadaa hadalkii balse waxaa baaqi ahaanaya oo jiraya xanuunka uu dareemayo qalbiga la dhaawacay korkaaga ma ahaanin inaad markasta ahaato qof xoogan mararka qaar waxaa kugu qasaba inaad martid xaalado daciiftinimo ah hana ka qajilin maxaa yeelay waa qayb ka mida bani'aadamnimada haddii aadan awoodin inaad gadaashaada eegtid mararka qaar taas oo kuu diidaysa inay gadaal kaa jiraan waxyaabo ku xanuunjinaya sidoo kale aadan awoodin inaad hortaada eegto oo aad ka arkayso mustaqbal mugdi ah waxaad eegtaa samada oo gacmahaagana u taagataa rabbigaaga markaasi waxaad helaysaa mid ku maqla oona ajiibaya ducadaada goortaan ogaaday in runtu dadka qaar ay ka xanaajiso waxaan ogaaday in aamusnaantuna ay xigmad tahay ma jiro wax u dhigma niyadda wanaagsan waxaad doonto samay kana tag si ay kuugu fahmaan siday ayagu doonaan ha ilaabin weligaa 3 qof inta aad nooshahay midka koobaad qofku siiyey kaalmo xilli aad ku sugnayd xaalad adag midka labaad ha ilaabin qof kugu arkay adigoo ku sugan xaalad adag kadibna kaaga tegay midka saddexaad ha ilaabin qof isaguba ku dhigay xaaladda daran ee aad ku sugan tahay haddii aadan ku qanacsanayn darajada iyo booska aad hadda joogto si degdega u beddel maxaa yeelay adigu ma tihid geed ka baxay halkaas si aad u guulaysato waxaa korkaaga ah inay ku gubayso baahi aad u qabto guusha aadanna ka cabsan fashilka ee aad wajahdo khatar kasta oo ka sokaysa guusha naxariisii nabadgelya xagga alle ka ahaatay dushiina ha ahaato walaalayaal